wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay qorshaha ciidamada AMSON aysan qayb ka ahayn wadahadalada magaalada Ankara ee ku heshiiyeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya in ay sii ahaan doonto awoodda ugu dambeysa ee xulista dalalka ciidamada ugu deeqa howlgalka cusub ee AMSON. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in mar walba loo baahan yahay in xal kasta oo jira laga hortago isla markaana madaxbannaanida Soomaaliya iyo midnimada wadajirka dhuleed iyo mabda'a muhiimka ah. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in baaqa Ankara uu dib u xaqiijinayo madaxbannaanida iyo midnimada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Itoobiya ayaa doonaysa in ciidamadeeda ay qayb ka sii ahaan doonaan howlgallada nabad ilaalinta ee Soomaaliya kuna biiraan howlgalka cusub ee lagu wado in uu bilowdo sanadka cusub si uu u bedelo ADMIS. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Ankara ka sheegay in ciidamada Itoobiya ay naf uhurid u sameeyeen isla markaana xasiloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay ciidamada dowladda Itoobiya. Madaxweynaha ayaa horey waxa uu ugu eedeeyay dowladda Itoobiya in ciidamadooda ay ku xadgudbeen gudaha Soomaaliya isla markaana taasi aan marnaba loo dul qaadan karin. Sidoo horey u sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhowr jeer ku celceliyay in dowladda Itoobiya ay xadgudub aan ay ku hayso gudaha ciidamada Soomaaliya, taasina marnaba aan loo dul qaadan doonin. Hase ahaatee, hadda ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in dowladda Itoobiya ay naf iyo maalba u hurtay shacabka Soomaaliyeed sidii ay ugula dagaalami lahaayeen cadawga waxa ugu yeeray gaar ahaan ururka Al-Shabaab.